السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني وحسن عيقة channel iyo Dahir Cali waa walaalihiin maanta ama habeenkan caawa waxaan ka hadlaynaa qodobo kala duwan qodobadaas oo guud ahaantoodba ku saabsanaan doona dagaalkii ay canfartu ku soo qaaday galbeedka city gaar ahaan magaalada Garbaciise iyo khasaarihii iyo dhimashadii iyo gumaadkii ay ka geysatay halkaasi wariye Dahir Cali ayaa hadda igula sugan Dahir waxaad nooga warantaa balada xaaladu hadda siday tahay balada waqti xaadirka ciga aad baad u maasan tahay sidaan ka warqabno maalinta sabtidii ciidamada canfarta waxay dabcan weerar ku soo qaadeen magaalada Garbaciise dad fara badan bay laayeen dad la 600 700 ku dhownay soo barakiciyeen oo guryahoogii bay baabiyeen hantidiina way qaateen dadkaas sidaan ka warqabno xalay waxa la keenay magaalada Hardiin iyo waliba sidoo kale Mulli halkaas ay hadda ku sugan yihiin kadib markii dadkaas la soo saaray shacabkii Soomaaliyeed ee deganaa aaga galbeedka gobolka City ee magaaladaas waxay dabcan saaka qaadeen duulaan ay kaga argoosanayaan magaalada ay dib uga badbaadinayaan dagaal fara aad u culus baa maanta dhacay cigow sidaan ka warqabnana hadda wararku qaarkood ay sheegayaan waxa si guud loola wareegay magaaladii Garbaciise waxaana hadda gacanta ku hayo magaalada dad Soomaali ah oo dabcan dadkii magaaladan lahaa cigow marka si guud magaalada dagaalkii maanta dhacay waa laga adkaaday gacantana waxay ugu jirtaa dad Dahir waa maasan tahay saan la socono horta nimanka canfartu saddexda magaalo Cundhufa Cadeyd iyo Garbaciise saddexdii sano la soo dhaafay waxay ka geysteen khasaare ka badan boqolkii sano ee uu socday dagaalka Ciise iyo Canfarta si kale markii caadi loogu dhigo waayo dagaalkaas Ciise iyo Canfarta la yiraahdo ee hadda ka hor ka socday aagaasi waxa uu ahaan jiray dagaal shacab u dhaxeeyo xoolo dhaqato oo daaqa biyaha iyo maartay ku salaysan buu ahaa laakiin waaydi dambe dagaalku dagaal siyaasadeed ma noqon siiba saddexdii sano soo dhaafay 2018 markii isbedelku ka dhacay dalka shacabka saddexdaasi magaalo waxay dib u dalbadeen xorriyadoodii laga xayuubiyay 2014 oo si qasab ah iyagoo waxba la weydiinin loogu daray muxuu ahaay deegaanka canfartuna markaas xitaa waxyaabihii waaga lagu heshiiyay ee ahaa dadka in xuquuqdooda la sugo waxbarasho la siiyo caafimaad la siiyo biyo la siiyo horumar la siiyo hal shay muuna ku darin waxbarashadii halkii bay kaga gooday heer caafimaadkii ma jirin wax ilaahay abuuro xilligaas jiray ma jirin isbedelku markuu dhacayna dadku su'aashii xaq ahayd ee xaq u lahaayeen ayay dalbadeen oo ahayd inay deegaanka Soomaalida ku soo laabtaan dagaalkaas waagaas markay iyagu shacabku dalbadeen dhibaatadii canfartu ka bilowday way sii xoogaysatay طبعا مدة سنة ها ضد كدنتي لما قياس كرو هنتدا بابا لما قياس كرو حولها لا دعي لما قياس كرو هذا deegaanka Soomaalida oo ka duulay muxuu ahaay rabitaanka shacabka ayaa 2019 waxa uu hawada u laalay ahayd go'aankii hore waxaan yiri dadkaasi waxay ka tirsan deegaanka Soomaalida haddana dagaalkii ma istaagin waa sii xoogaystay iminka muddo dhow oo bil iyo xogaa ilaa 2 bilood cadeyti wixii ka dhacay waad ogeyd si guud ay kula wareegeen magaalada tan Garbaciise ka dhacday mid lamid ah ayaalka ka dhacday bahayd ruuxantii waagaas aadna loogama hadal aadna maartay sida faankan hadda ay bulshada Soomaalida ay leedahay iminka Garbaciise oo yeelatay iyo baraarug yeelan bahayd taasi marka waxay keentay nimankii canfartaha inay haddana sidaadin meel kale yartay taas koor waxa jira hayd marka heshiiska maartay deegaanka Soomaalida iyo deegaanka canfarta Soomaalidu heshiiska way qaadatay laakiin nimanka canfarta heshiiskii way gaashanka u daruureen waa qabsashada iyo dhibaatooyinka faraha badan leh xitaa waxa sababta oo heshiiska la qaatay ee la sheegay martay in looga baxo aaga ayaduna way diiday deegaanka Soomaalidu iyo odayaasha dhaqanka gobolka City ugaas Mustafa iyo guud ahaan waxba la waday laakiin taasi ma noqonin wax badbaadiya shacabka Garbaciise shacabka Garbaciise sheegtay sabtidii hadda wali tira sax lama haydo ilaa 400 qof ka badan oo caruur iyo muxuu u badan waliba hooyooyin kuwa uurla kuwa ilmo lama wada ayaa run ahaantii si bani aadamtinimada ka baxsan loo dilay oo loo xasuuqay arintan xilliga ay dhacayso Ethiopia waxa ka jira media fara badan baa ka jira mediahaas hal mar xitaa mayna hadal qaadan markay hadal qaadana waxa way maanta markii la yiri maartay waxba dhacay ay leeyihiin maartay media muxuu ahay deegaanka canfarta ahmarada kale kuwa taageera in ay leeyihiin maartay canfar baa lagu soo duulay maxaa la soo duulay 300 400 baa hal maalin
saacado kooban qudha lagaga jaray oo weliba si arxan darra qaarkood loo gorgoracay marka arrinta qadiyadani kulli horta waa qadiyad u baahan in maartay la weyneeyo qadiyadda haddaan la weyneynin meel ma gaadho qadiyadaha adduunka ka socda sida Falastiin oo kale iyo muxuu ahaay arrimo kale oo noocaas oo maartay adduunka ka dhacay iyo Rwanda oo kale waxa qayb ka qaatay waa ummadda oo miidiyaha la wadaagtay miidiyaha inagu aan dadkeenu badan inagu adeegsanno waa Soomaali Ethiopia waxay wax ku fahantaa luqadda Axmaariga iyo luqadaha kale soo raaca marka qadiyadan in mar kasta lagu celiyo oo la soo bandhigo sida canfartu dadka Soomaalida uga gardaran tahay iyaga laftooda xitaa markay wax yar ay sameeyaan propaganda ay sameeyaan oo wadiga arka TV-da kale waxa la go'aanay al-shabaab baa soo duushay Djibouti baa wax soo taageertay Somaliland baa maxay laga soo diray Soomaali weyn baa wax laga soo diray fikirkiisiyad baray la wadaan bay iskiida alliya wax loo baahan yahay bajro raanti dhukan ay hadda ka sheekeynayaan 1940kii ilaa 30yadii aw 40kii heshiis dacaba wuxuu sheegay in Soomaalidu ay magaalada Guwani la yiraahdo wax xagan ka soo xiga ay xoolahoodu iska taaqaan canfartana Guwani wixii xaga ka xiga ama Guwani ma canfar buurta Guwani magaalada in wax xaga ka xiga ayagu maartay ay waxaystaan kuwa xagan waxa ka soo xigana martaas ayuu qorsho haabay taa maartay hab ma noqonin maartay wax dhaqan galay waayo mar walba iyagu waxay ku taabayaan oo ay leeyihiin dhul baan laga haystaa dhul lagama haysto oo wax ilaahay la muli la arbe xitaa soo qorayeen hameen hore markay garbaciisa qabsadeen waa markay rabaan qadiyadooda inay dadka kale ka gadaan oo ay leeyihiin Soomaalidu dhul bay naga haysataa hasa haatee taasi ma dhicin oo maartay dhulkan ilaa iyo maartay Haile Selassie Mengistu iyo TPRF intaas way qaadi waayeen laakiin markii dhaweyd magaaladii cadeyta ahayd dhibaato fara badan bay ka geysteen magaaladii hadda iyaga gacanta ku haysta garbaciisa iyaduna ay rabeen maartay saasoo kale inay ku sameeyaan waa inuu suurta gasho waa kuwa dadka faraha badan lagu xasuuqay si xitaa mar dambe ay shacabku xasan ciidan ka dhex galay waxa isweydiin leh ciidankii qaranka oo joogo oo dabcan sida dastuurka Itoobiya ku qoran yahay qofku uu ku noolaan kara magaaladaas iyagoo la arkayaba waxaad arkaysaa iyagoo ciidanku joogan baabuur laga soo saarayay oo magaalo kale la keenay waxyaaba inta badan dadku isweydiinayaan waxa kamid ah ciidanka qaranka oo magaalada dhex joogo in shacabkiisa loogu gumaado oo xitaa hubkii laga dhex qaato ciidanka intii xirada ciidanka intii galeen way jirtaa taasina waxa way dhibaatooyinka dhacay at least shacabka maadaama oo heshiiskii xitaa ay Soomaalidu canfartu iyana qaadan bay Soomaalidu markay qaatay wuxuu heshiisku ahaa in ciidanka ay ilaaliyaan shacabka amnigiisa كان عيدن كوا كوف شلين هاي عيدن واحد شوقي كوي فدرال بوليس كشوقي عيدن كلا واحد شوقي محو هاي دولة دفاع قرنك وعيدن كأهل الشيء إنه يهي عيدن كإثيوبيا نمذا إلالية إثيوبيا نمذا مركي الله الشيء بقى يكون دحجرتو قلبي يده كابورين عيدن كوقدم بي الله بحصل مركا يجي شوقي ببارتي دتكاس دبعت ذا سيكون عليه الله نحرسان لنا دمان دتك هالكاس كوجيريودي kuwii heladoodu maartay halkaas ay ku geeriyoodan xalana samiri iiman waxyaalaad xasan cigo isleedahay hadda kadib hadii sheekadaas rasmi ay noqoto oo magaaladii gacanta lagu dhigay oo shacabkii gadaal loogu celiyo maxay kula tahay xalku muxuu noqon doonaa bay kula tahay anyway horta iyagu waxa ugu tala galeen baahan meesha in laga qaxo magaalada qabsadaan kadibna maartay saas wixii ay rabaan waxtaa hadee dood sharci timaado inay yidhaahdeen aftidii hal la qaado markii dadkii barakicimo marka taas uma suurta galayso cadeyti baan aragnay wixii ka dhacay laakiin garbaciise impossible nurti dadka inta badan Soomaalida ganacsigeeda meel waa meel ganacsi magaalo istiraatiiji oo markii ugu yar tahay waxa la sheegi jiray ilaa 70,000 qof inay ku noolaan laakiin dagaaladii waxay sababeen dad fara badan inay magaalada qofno ka bixi waay qofno soo gali waay ka barakacad dad fara badan laakiin way dambeysay dad iyaga laftooda aan yareen ayaa magaalada ku noolaa oo maadaama ay meeshu meel ganacsi oo ganacsiyada kala faraha badan dhulkan laga qaado ayaa halka tagay Itoobiya kala kadib loo sii gudbiya marka iyagu dood waxa dagaalku waxa u galeen wax kala maaha maadaama oo qasab ay noqonayso doorashada wixii ka dambeeya in afti la qaado oo meeshan lagu kala baxo ayagu taasi ku hortageen oo dib maxal deegaameen cusub inay bilaabaan ayay wadaan kali garbaciisa ma meelaha kale xitaa laamiyada inta badan xitaa way dhisteen hadda
dad baa qasab lagu dejinaya dad laga soo sala webiga waash meelaha uu maro kale dadkii fatahaadu dadka saameysay ayaa la soo kaxaynaya guryaha looga dhisaya marka waxay rabaan dadkii in maartay inay ku beeraan bay rabaan taas marka waa de qorshahooga fog ee ay rabaan dhulkaas inay kula xoroobaan dabcan siyaasadooda inay isbedeshaan muddo 3 sano u dambeysay marka fiirisnimo marka waxa loo baahan yahay aynu nuguna maartay dadkeenii halkaas soo barakacay halka biki iyo dirraba iyo ilaa jooga muxuu ahaayay casbul iyo maaysi afdam dadka tugan ee soo barakacay cadeynta soo barakacay iyagana inaan dejino maartay halka ay ka soo barakaceen lagu celiyo inta kale hadii lagu celin karo waxay ka tala dejiyo xoolo dhaqatadii xitaa dadka xooluhu u daaqayeen digadaal loogu celiyo dhulkoogii lagu celiyo de ceelashii loo qodo biyo loo sameeyo waxbarashada halka loogu sameeyo ayaa loo baahan yahay arintani dabcan dadku dhan way ka dhiidiyeen runaantii marka laga tago shacabka ku dhaqan gobolka city gaar ahaan guud ahaan Soomaalida oo dhan arintan aad bay uga galgisheen taas marka waxay keentay in bari deegaanka Soomaalida halda qodobkaano maxaa bari filayna ka dhacay deegaanka Soomaalida bari xasan cigow saan ka warqabno waxa lagu dhawaaqay guud ahaan deegaanka Soomaalida in banaanbax lagu taageerayo isla markaasna lagaga soo horjeedaan iraade dhibaatooyinka ay canfartu ka geysanayaan siiba dhacdada u dambeysay sabtidii dhacdo kale si guud deegaanka waxa la qaatay in maalinta Brito la banaanbax nabadeed oo lagu muujinayo si looga soo horjeedo tacadiga iyo dhibta loo geystay dadka la xasuuqay inay Brit dawlad dhici doonaan waxa kale iyaduna xasano inta badan hadal hayn leh xalay toole waxa baraha bulshada hal mar soo wada qabsaday wariye Nasruddin oo kamid ah wariye ka shaqeynay warbaahinta qaranka Itoobiya oo isagu dabcan ka diidiyay arintan isla markaasina sida uu sheegay qoraalkiisa ku sharaxay in uu dul qaadan waayo wax halkaas ka dhacayo isla markaasina shaqadiisii ka tagay oo warbaahinta siyaabo kala duwan ay maanta oo xasan cigow u hadlaysa ayaa jiray ilaa ajintu noqday BBC da xitaa ka hadashay وصح نصرالدين وكم معسير رانتي فعل كجسني ما ذلك وقاتي وفعل كدايشة مدن ونبهان إنه جو بقاديو إنه يرادو ويديها ماركة شعب كيجا واحد لينه سيتشو كسيم ده هان ما ينو رانتي وواحد لو بهاي إنه جو بقاديو ستين محلنا هو ما سنتهاي keep going بالنا هالشجرة هي هي بالنا مركب بري واحد خشيسم ساتشكتي إن ديجان كسومالي ده دبت بحيو taageero iyo muxuu ahaay ka soo horjeed looga muujinayo markay waxa ka dhacay dadkana martay lagu dhiirigelinayo shacabka Soomaalida halka degan in la garab taagan yahay in kaligood ahayn canfarta iyo wixii la socdayna martay halkaas iyagana lagu cambaareeyo ayaa ka dhici doona deegaanka waxa kale oo iyadna kulay dawladdu hadda wararka ugu dambeysay sheegeen talaabadii loo baahnaa ee laga sugayay way qaaday inkastoo ay la soo daahday dawladdu laakiin hadda dawladdu inay talaabadii wado ayay gacanta shacabka ku soo celiso magaaladii sidii shalay ballan qaaday oo ahaa maartay inay talaabo kasto shacabka lagu difaacay qayd doonto taana waxa leenahay si wada ilaa maartay dhulka Soomaalidu laga xoreynayo ka ahaanayo dhul xor ah oo saanta ugu noolay jijiga soo loogu nooyay Shineela si loogu nooyay qabri dahar loogu noolada muxuu garbaciisa cadeyti iyo cunduf oo dadku ayna walaac ku noolaanin oo dadku walwalin oo inay suran maartay meeshan goorma lagu soo weerar goorma lagu barabixin walbaar ka baxo si xor ah oo bilaawul walaasaga noolaadan taana dawladdu inay sii wado ayaan leenahay dadka kale waxa wali xiran wadooyinkii muxuu ahaay shacabka dhalinyarada gadooday baa wali wadooyinku waa inay xidhay wararku aan ku haynaa wadooyinkii Djibouti ka imanayay adoo noqon lahayd tareenka iyo haday noqon lahayd wadadii kale ee laamid ahayd taasna maartay waa talaabo fiican filaysa oo maartay lagu culays lagu saaray dawladda at least meeshan in indhaha loo soo jeediyo wadankii la xuna qabatay ma laakiin culays kan la dareemo in dawladda la dareensiyo meesha waxa ka